fariintaydu waxay u gaar tahay gabdhaha muslimaadka. Gabadh yahay wuxuu Rabbi kaa uumay labadaada waalid, wuxuuna kugu abuuray si aad u caabudo. Abuur ahaan waad ka duwan tahay xaqiiq ragga, qiimo iyo sharafna waad dheer tahay. ilaan waxaad tahay gabadh. Koritaankaaga iyo wanaagaaga noloshaada labadaada waalid waxay ku mutaysanayaan janno. waatuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri qofkii koriyay 2 gabdhood 3 gabdhood xabad baa Allah ka dhigay, kadibna wanaajiya oo kafaala qaada edbiyo oo akhlaaqdooda ilaaliya, wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u siinayaa jannaadkiisa. moogtahay marna waxaan mudan tahay oo waxaa tahay hooyo, waxaan mudan tahay wanaag, waxaad leedahay xaq gaar ah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada wuxuu dhigay labadaada cagood hoostooda. Rabbi wuu ku karaameeyay 3 jeer ayuu xaq ku siiyay. cadhadaada waxaa lagu xidhay cadhada Rabbigeena, raali ahaanshahaaga waxaa lagu xidhay raali ahaanshaha Rabbi subhanahu wa ta'ala. iyuuna Rabbi ku sharfin. miyaadan ogeen Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri cadhada waalidka waxay ku xiran tahay cadhada Ilaahay subhanahu wa ta'ala, raali ahaanshaha waalidkana waxay ku xiran tahay raali ahaanshaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala. wal fiiri karaamada iyo qiimaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay. gabadh yahay maxaad soo karaamatiraysaa? maxaad qiimahaaga u liidaysaa? maxaad dhulka u dhigaysaa? maxaad jidhkaaga u dayacaysaa? biyuuna quraanka qiimo gaar ah ku yeelin, biyuuna Rabbiga ku labisin. aw xijaabkii lagu waajib yeelay Allah shalaytee, maxaa khamiiska lagu waajib yeeli waayay? walla waan xidhan lahaa oo waan ku labisan lahaa oo waan ku seexan lahaa, waan la soo toosin lahaa, Rabbigeena waan u shukrin lahaa. gabadh yahay u soo noqo Rabbigaaga oo zinada iyo fawaaxishtaha fududayn. wallahi qiimo kuma lihid oo billahi qiimo kuma lihid inaad qaawanaato, gacmahaagu qaawanaadaan, lugahaagu qaawanaadaan, jirkaagu maradu ay ku dhagnaato. gabdho badan maanta waxay ku andacoonayaan aniga waan asturanahay, maxaa dhacay? waxay wadataa cabaayad xagga hore u furan, kadibna waxaa banaanka u soo baxaysa lugteeda, waxaa qaawan laabteeda, waxaa qaawan garbaheeda, waxaa qaawan gacmaheeda. wuxuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamaya in aakhiru zamanka ay soo bixi doonaan 2 kooxood. calaamadaha qiyaamahan ay kamid tahay 2 kooxood waxaa kamid ah dumar gabdho way maray xidhan yihiin mana xidhna. nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun, maray xidhan yihiin maray xidhno, way ka aradan yihiin, xaqii way ka iisheen, ummadiina way ka iideen. wallahi waa kuwan hadda jiro oo kale, waa kuwan gabadhii ay aad maanta kamid ka tahay. xaqii way ka iisheen, ummadiina way ka iideen. madaxyadooda waxaad moodaa ka athlimatil bukhti, sida kuruska geela oo kale ayaad moodaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay jannada gali maayaan, carafteeda iyo urteedana heli maayaan. naclada waa la nacladay. subhanallah, waxaa murugi iyo masiibo maanta ku ah weyn waliba inaad kooxda aad kamid noqoto. kooxda inaad kamid noqoto maalmo kownkan dushiisa waad joogaysaa gabadh yahay oo waad saarnaanaysaa. iska niiki oo iska baashaal, boodbood ku raadsi jirkaaga taageero. Instagram iyo TikTok dhexdoodana taagnow. walla waxaad sidaa samaysaba wallahi inaan muddo badan ahayn waad dhiman. sabab kasta ku dhimo, waa lagu aasayaa. haddaad qubaysan jirtay waa lagu qubaynayaa, haddaad labisan jirtayna waa lagu labisayaa. qolkii aad TikTok-ga iyo muuqaalada iyo sawirada aad isaga soo qaadi jirteen walle inaan lagu dhigi doonin, laguna dhaqi doonin. waxaa lagu geynayaa qolkaad martida iyo masaakiinta aad fadhiisan jirtay. dambi dhaaf baa Rabbi lagu weydiinaya. waxaa la leeyahay marxuumadda Ilaahay dambi dhaaf loo weydiiyo. laakiin soo ceeb ma ahan inaad Rabbi ku caasido hadda, oo aad u dhabar jeediso, aad u rukuuci weydo, oo aad u sujuudi weydo. barina ergadaada iyo dacwadaada la horgeeyo la yiraahdo Rabbi oo u naxariiso. Allah shalaytay ducada ma lagu aqbali doonaa, waa lagu aasayaa. waxaa lagu gelinayaa qabri. gurigaaga dhabta waa cidhiidhi, waana mugdi. ma jiro hooyo kuwa heliyelaysa, mana joogo aabba garabkaaga ah oo garabkaaga istaagaya. maligi taageero xog iyo warkaa keeni doonta oo dhihi doonta war gabadhii Hiblaaye ahay ee TikTok-ga taageeraha badan ku lahayd ha loo maciin, qolkeeda ha loo waasiciyo, waa mugdi nal ha loogu xidho, waa cidhiidhi ha loogu heliyeelo. waxaad muddo sidaa ahaataba walla waad dhimanaysaa. waxaa la dhihi doonaa waxay ahayd reer TikTok, waxay ahayd reer Instagram, waxaad shaqaysan jirtay waxay ahaayeen xumaan, wax wanaagana kamaadan tegin. waxaad ka tagtay taageero kugu furay albaabaha jaxiimo. waxay kugu dardargelin jireen xumaha, adna waxaad ka qaadi jirtay dhiiranaan. waxaad noqon mid laga raysto. waxaa la dhihi jiray statuskeeda
waxaa la dhahayaa statuskeeda waxay dhigi jirtay ay ku soo busgarin jirtay xumo hadda waan ka raysanay dunuub badan bay noo horseeday istiqaada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gabadhii hebel ka waran marxaladda inta dhaleega aad mar isaga waran in ilaahay ku qiimeeyay in ilaahay sharaf bi karaama ku yeelin gabadhiyahay waad dhimanaysaa wallahi inana markaas qooma waxba ku taraynin ilaahow celi aan dambi dhaaf hal mar dambi dhaaf soo weydiistay ilaahow celi aan hal mar wax soo sadaqaystay waxba kuma tari doonto walaale haddaad maraysaa meeshaad isku sixi lahayd hadda ishagaaji hadda axwaashada hadda hagaaji oo toosi walaale wallahi fursad baad haysaa haddii naftu ku jirto haddii nafsanayso haddaadan sariir saarneen wallahi fursad baad haysataa walaale ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqo saaxiibadan xunxun jar tiktokan masax oo tirtir instagramkan isaga tag waxaan oo dhan xumaan isaga tag walaale muuqaalada xunxun anshax xumada aad duubtay ee aad qaawan tahay iyo sawirada iyo muusiqa teleefankaaga buuxa masax oo tirtir walaale isaga tag waxaan isaga tag wallahi diintaada ayaad qiimo iyo sharaf ku leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo kugu cizeeyay qaado walaale xijaabki ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu waajib yeelay xijaabki ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu waajib yeelay qaado haddii labadaada waalid ay ku joogaan utag oo bari waxaad ku tiraahdaa ilaahay subxaanahu dambi dhaaf ilaahay ii weydiiya ilaahay dambi dhaaf ii weydiiya hadday dhinteen waxaad ogaataa wallahi billahi tallahi inay duco maanta kaa rabaan waalid ubad bay ka tageen waxay isleeyihiin ubad baad ka tagteen laakiin waxaad ogaataa maadaama ay kownkan ku dul keeneen in aad jaxiimo aad ku hurinayso ogow maalinta qiyaame waa loo qabanaya waxaa la leeyahay ubadkaad ka tagtay ee aanan qaangaadhin adigoona qaangaadhin aad ka tagtay waxaanay sameeyeen xumaanay sameeyeen wanaag maadan barin salaad sida loo tugta maadan barin subhanallah bal ka waran hadii maanta waalidiintaadii ilaahay subhanahu wa ta'ala ay maanta ay rajaynayaan oo ilaahay subhanahu ay ka sugayaan in ubadkooda maanta u soo duceyn doonaan barxadan ku sugan tahay bal ka waran hadii waalidiintaadii ka maqan yihiin ilaahay dib dhaaf u weydiyo ilaahay u noqo gabar yahay qayb ha ka noqonin silsiladan socotay ee diinta lagu duminayo ee akhlaaqiyadkeeda lagu tirayo ee maanta gabdhaha loo adeegsanayo qayb ka noqonin maanta maradii xijaabkeeda waa la suuliyay waxa lagu dagaalamayaa in gabdhaha inta kale xijaabka uu saareen xijaabka laga rogo iyadoo loo soo marayo adiga qayb ka noqonin jooji xabaayada aad ku labisanayso ee maanta reer galbeedku ay soo dajiyeen sanawaad ka hor carab baa qaadatay dhaqankii hadda maanta waa soo gudbay oo Soomaali baa ku labisanaysa qayb ka noqonin diintan la duminayo qayb ka noqonin bari ka noqo ilaahay subhanahu wa ta'ala yuna maalinta qiyaamah maxkamadda ku soo saarin diintan in dumintii aad qayb aad ka qaadatay الله سبحانه وتعالى كوي دينيا هداية يهنوب إلهي سبحانه وتعالى كوي دينيا إلهي بنت بداف كوي دينيا ولا علي كنقه هوشان كنقه وكتوبت كن إلهي سبحانه وتعالى والرحمة بضنه وكود بدافيا إن حريص إلهي سبحانه وتعالى هكا قوصن دبنا هوشان هاو نقن انت فافني سافرينتا مقضعا ولا له ذاك لقارسين يا هبلها ما أنت لبني ذنوب تدلد على داعية والله وحا هبال ما أنت انت ذنوب تلد على دعيسة انت ما انت حماها ولا قنسو انت ذنوب تلد على دعيسة وان شيطان كا ضوف سنه مرا كدن بيسو دنبي اي غلان qalbigooda waxa ku dhalanaya dhibic midoob oo ku dhex dhalanaysa inta maanta bukta ee bukaanka noocaas macaasida walaaqanaysa inta gaarsiinaysa ilaahay subhanahu dambigooda Allah dhaafo salaamu alaykum wa rahmatullahi